distinguished Israeli business leaders, investors, entrepreneurs, ganacsatada maalgashadayaasha iyo dadka halabuur kale ee Israa'iil marwooyin iyo mudanayaal sharaf weyn ayay ii tahay in khudbadan ka jeediyo kulankani weyn ee ay isugu yimaadeen ganacsatada Israa'iil. I extend my sincere appreciation to the organizers of this. waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay kulanka oo abuuray fursad lagu xoojinayo xiriirka dhaqaale ee u dhaxeeya Somaliland iyo Israa'iil iyadoo laga sahaminayo dhinacyada iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga. Trade and partnership. Today, I came before. maanta anigoo idin hor jooga ayaa waxaan dirayaa fariin fudud oo ah Somaliland is open for business. Somaliland waxay u furan tahay ganacsiga waxaana Somaliland ay diyaar u tahay maalgashiga Israa'iil sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadduna. The gates of Somaliland only is not open, but the hearts of Somaliland is open for you. This forum is not merely a discussion about opportunities. kulankani ma aha mid lagaga wada hadlayo fursado ee waa casuumad loo fidinayo shirkadaha iyo maalgashadayaasha Israa'iil oo ay ka mid yihiin shirkadaha tiknoolajiyadda iyo warshadleyda oo iskaashi la sameynaya mid ka mid ah suuqyada kobcaya ee Afrika. In one of Africa's most promising markets. For more than 3 decades, Somaliland has maintained in ka badan 30 sano Somaliland waxay haysatay nabad, xasilooni, maamul dimuqraadi ah iyo amni iyadoo ku taala gobol ay xaaladiisu hubantilaan tahay. Somaliland waxay iska dhigtay meel la isku halayn karo oo laga hirgelin karo ganacsi iyo maalgashi jira waqti dheer. We have built functioning institutions. waxaanu dhisnay hay'ado shaqaynaya annagoo ilaalinay ganacsiyada gaarka loo leeyahay. waxaanu haynaa meel ganacsigu uu ku shaqaynayo oo hore ugu soconayo. waxa Israa'iil aanu u aragnaa saaxiib qiimo badan oo aanu iska kaashanayno waxyaabaha ay Israa'iil sida qayrul caadiga ugu guulaysatay oo ay ka mid yihiin In innovation, technology, tiknoolajiyadda, beeraha, maaraynta biyaha, adeegyada caafimaadka, cyber security-ga, tamarta la cusboonaysiiyo iyo ganacsiga oo waddan khayraadkiisu kooban yahay ka dhigay mid ka mid ah halabuurada dhaqaale adduunyada ugu horeeya. Somalilandna si weyn ayay ugu qushuucday guulahani waxaana ay raadinaysaa in Israa'iil ay iska kaashadaan ganacsiga oo keenaya faa'iido ay wada dhan yihiin labada dhinac. Ladies and gentlemen, Somaliland offers opportunities that are significant, diverse. mudanayaal iyo marwooyin Somaliland waxay bixinaysaa waxyaabo muhiima oo kala duwan oo weli aan la daah qaadin. meeshaanu ku naalay istaraatijiga ayaa ah marinbadeedyo mashquul badan oo naga dhigaysa albaabka laga galo Afrika iskuna xidhaysa bariga dhexe iyo suuqyada caalamiga ah. The port of Berbera is rapidly. dekada Berbera oo kobcaysa waxay noqotay goob ganacsi oo adeegyo leh umana adeegaysa Somaliland ee sidoo kale waxay u adeegtaa wadamada dariska iyo guud ahaan geeska Afrika. Horn in Africa. Our economy offers investment opportunities in logistics. dhaqaalaha iyagu waxa uu keenay fursado maalgashi oo ka jira dekadaha, aagaga cashuuraha ka caagan, kalluumaysiga, hilibka xoolaha, macdanta, tamarta la cusboonaysiiyo, warshadaynta, adeegyada caafimaadka, guryeynta, tiknoolajiyadda, waxbarashada, adeegyada biyaha, dalxiiska iyo waxyaabo kale oo laga yaabo inaan ilaabay. And tourism and many may I have forgot. We possess vast natural resources, a growing consumer market, iyadoo uu yahay fursad horumarineed
waxaa jira dad badan oo daayar oo xifrada leh oo qayb ka noqonaya suuqa dhaqaalaha casriga ah oo Somaliland ay u raadinayso cid ay iska kaashadaan oo keenta maalgashi khuburo iyo tiknoolajiyada. halkanna waxa weeye meesha Israa'iil ay isbeddelka ku samayn karto. waxaan ku dhiirigelinayaa shirkadaha Israa'iil inaanay Somaliland u arag suuqu, laakiin ay u arkaan inay tahay meel istiraatiijiya oo ay kaga fidaan geeska Afrika iyo meelo ka sii fogba. baahida sii kordhaysa gobolku uu qabo ee wax soo saarka cunnada, adeegyada caafimaadka, xal u helidda biyaha iyo halabuurka tiknoolajiyadu waxay keenayaan fursadaha ay maalgashadayaashu rajada ka qabaan. dowladdayda waxa ka go'an inay taageerto maalgashadayaasha iyo daneeyaasha ganacsiga. waxaannu soo dhowaynaynaa shirkadaha doonaya wada shaqaynta jirta muddada dheer ee keenaysa shaqo abuurka, tiknoolajiyadda, horumarinta warshadaha iyo koritaan dhaqaalo waara. waxaan leeyahay ganacsatada Israa'iil ee maanta halkani isugu timi, booqda Somaliland oo sahamiya fursadahaannu hayno, la kulma dadkayaga, soo arka khibradda iyo kartidayada, la xidhiidha hay-adaha iyaga dowladda, oo noqda saaxiibaannu iska kaashanno dhaqaalaha. The relationship between Somaliland and Israel should not be limited to diplomatic. xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Israa'iil kuma xadidnaan doono oo kaliya diblomaasiyadda, ee waa inuu ka muuqdaa warshadaha, beeraha, tiknoolajiyadda, logistikada, maalgelinta iyo ganacsiga oo u abuuraa barwaaqo labada dad. Prosperity for both of our people. Ladies and gentlemen, mudanayaal iyo marwooyin, mustaqbalku waxa uu la jiraa kuwa aqoonsan fursadaha intaanay dadka kala arag. kuwa jecel Somaliland waxay haystaan fursadaasi. waxaan ku casuumayaa ganacsatada Israa'iil inay nagu soo biiraan, iyagoo ah saaxiibo aan wada dhisayno mustaqbal barwaaqa. waana halabuurka, maalgelinta, xidhiir ku dhisan istixgelin iyo inagoo wax wadaagayna. waanan idiin mahad celinayaa.